والسلام يا دمان ومد الصوماليين اللي joogtaba وافayeenkii beesha daarood cabdikariin cali nuur ama Soomaali weynba waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrinta garowe ka taagan ee khilaafka Puntland ka jira hadalkayguna inta ugu badan 90% waxaan maanta kula hadlayaa Axmed Karaash madaxweynaha anigu ku xigeen oran maayo madaxweynaha Puntland أحمد علمي عثمان حافظ الله سيدا إن الله سبحانه أحمد وحان رباينا كاغا شيكيو هورتا بلان تاريخ هذا مركان تاريخ ذا بلان إيا مسحرات هذا أن كاغا ورمانا أن تلاكو سيو كوان فعلا بلان إنت أيركي مركي لديساي وضيال بيش الدارو عرب صالح وسنا صالح دارودا oo tanada daarood ciise daarood awrtable oo la yiraahdo haaw ciise daarood barmaanay عرب صالح oo صالح daarooda waxaan ku raada qolaatan hartiga iyo jambeesha iyo yana hebel daarooda reer noocaas baa Puntland dhistay odayaal iyo isimo iyo dhaqan baa isu yimi nin walba qabiilkiisii ayuu tuurta ku sitay mandate-kiisana sitay mid galdogob ka yimaada mid qardha ka yimaada mid taleex ka yimaada mid buuhood ka yimaada markii la isu yimi in maamul goboleed la dhistaa lagu talagalay Puntland la yiraahdo magaca kan si wada tashiye baa loo bixiyay Puntland وكمبني قندراس لو وضع صحيحي أما إنشاء أما كمبني لو وضع استوى اللجوء ذا الشراكية سيدا ساعات كاسي وحاو وضع استيان رك بدن بعض ورشدي وصوتر تمي عبد الله يوسف باكم بذها بمدو البانتاه كي مسول يسناقي عين أيه وحالي مركي دور الشدي مشرحين تيسا يرهول كالي هذا هلا ترتمي ويمحبالي محال لغا ترتمي مدحويني وام مقضاين لالوش كليا وحا كاني متشرين عبد الله يوسف حلية دقال صومالي اين هشين بيهايدنين اسكريا بوها حوغا حنيا بين مكان البانت كتهمية شاف كي قريعي وحالي مدحويني وام مقضا وعلالها ما انت صعوداك وقو صعودا بيكامت سيدي بوا كرسيقا وكفولي شانس أفر سنة للدورت وقتي مركو كذا ماضي أيوه وحدوني صومالي يسوق مدحوينه إنه مدحوينه كلا كان نقض صومالي وحل دولة الصومالي على الرصو وحلي جا دولة عبد القاسم اللي يرتي تيف شيدو أي مركز حمر كتشرته أو أي يلو شقين الصو ده نروح وقدر صدي مد كردين بلا شرعية والله لا تقالمي boosaasaa lagu la dagaalamay qardhaa lagu la dagaalamay garow waa lagu la dagaalamay waa laga saaray markii laga saaray ayaa waxa dhacday ciidan buu abaabushay Itoobiya uu galay waa la wareystay waxa la Cabdullaahi Yuusuf wisimadii waaweynaa oo dhan way ku diideen madaxweynena maahid wuu hadladay risimadu ma kala waaweynaa buu yiri madaxweyne inaan ahayna wiigana la ogaanay anigu wadanka xukumo jaamac ali jaamac baa la doortay muddo markuu Itoobiya ku maqnaa ayuu halkaa wuxuu kala soo galay niman midmadoow oo ciidan ah Ali Gariye biciidihan iyo reerkooda u badan dagaalku garowe ka soo bilaabay baduu ku galay habeenka markuu hadlay baa waxa gabiyay ninka la yiraahdo Cismaan Tirik aabihi oo urbogeys jooga markuu yiri waaba la ogaanaya wixii madaxweyne ka gabayuu mariyo ninkii aqabkiisa yooga qaalinimadiisa hadduu xalay to qowdhamay dagaal qarale buu sheegay qorweyn lillahi haween qadayla buu sheegay qabuuraha alqaacida xafaar qodaye buu sheegay qasnad lacagta lagu ururiyo qubana soo sheegay wuxuu ciidankii halka alxamdiga ka hortagay iyagoo lacagtiisa sitoo qolada jaamac ali jaamac ka qaad jiray garow uu ugu soo galay jaamac ali jaamac jaran jiraa loo bixiyo guriga xagga dambe uu ka dhacay waxaan Axmed Karaash uu kaaga sheekeynaya kursigan asaaka ku fadhidid marxaladaha uu leeyahay kursiga kan ee madaxda Puntland soo martay inuu san mid qura oo bariya ku yimi iyo jile iyo inaadeerow aanay jirin siyaasaduna ay tahay wax lagu kala adkaado laba xiniyood iyo awood u baahan
عبد الله يوسف دقالكي بدو ku galay uu ka bilaabay garowga mushaarkina wuxuu ku yiri ciidankana wuxuu ku yiri mushaarka waxa la ugu siinayay dikada boosaasood gala boosaasa markuu galay baa qayaatay meermeerka loo fadhiistay dib uu dagaal ugu soo qaaday dhuudaa la isla galay waxa sidaa markaa u dagaalamaya dagaalkii waa lagu kala hadhay qoladii Puntland ee kordhisay ee Cabdilaahi ka soo jeeday way kala hadhay niman Cismaan Maxamuud oo reer ah iyo niman la socdo adigu markaa dashiisha iyo qayb dashiisha iyo qayb Ciise Maxamuud iyo adigu niman Cismaan Maxamuud baa markaa kursiga ku haysta Cabdilaahi Yuusuf oo GBB la baxay laakiin Cismaan Maxamuud oo reer ah qardhaa la iskaga daba tigay rag badan baa dhintay waxa la dhuudo cadda dagaalkii la wareegay oo boqol jira oo Canada ka yimi oo xanuunsanayo oo kaliyuhu taagan yihiin oo indhuhu xanuunayo oo aan suuliga fadhiga ku fadhiisan karin baa dagaalkii la wareegay adna maanta adigoo lixda jira xoog leh baan waxaad baryaysaa nabadgelyo baryaysaa wuxuu sameeyay cadde ceelaf weyn baa dagaalkii cadde waa ciidankiisii waa laga adkaaday ceelaf weyn buu tagay banaan cidlaa dhaxana bartaasu garoonshiid ka dhigtay niman Muuse Abu Kurliya habar jeclaa hurmadow iyo qolooda buu halkaa ku magan galay halkaasuu ciidankiisii iyo baabuurtiisii iyo hubkiisii iyo jaaliyadiisii iyo wixiisii isku dubaritay Cabdilaahi Yuusuf arintii way ku adkaatay waayo wuxuu rabaa inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo Puntland cadda halka ka soo fadhiya aad bay arintii ugu adkaatay caddu bariyay labada jilib uu qabsaday wuxuu yiri in adeer uga caliyo wax kasta oo aad ogoshahay waa ku yeelay dagaalka ka jooji waayahay buu yiri waa la qaatay warqad A4 oo cad buu caddo u dhibay waxa rabti ku soo qoray buu yiri buurmadow baa dhexdhexaadiye ka ahaa sidaas dawladii loo kala baray badna waxa qaatay GBB iyo Cismaan Maxamuud badna waxa qaatay intii kale wasiiradii markaa la magacaabay GBB la sii Cali Cabdi Awaare baad ka garanaysaa ee dawladaha hoose iyo arrimaha gudaha loo dhiibay halka arintii markuu Cabdilaahi Yuusuf iskaga xidhay arintii Puntland ayuu xamar aaday deedna waxa dhacday markuu xamar aaday in bagaati baada Kenya oo tii in bagaati lagu dhisay dawladii watii la yiri Cabdilaahi Yuusuf toos sharaxay Cabdilaahi Yuusuf markaa xamar buu rabaa inuu qabsado iyo fil Soomaaliya kuraasta meesha loo maran Axmed Karaash saaka ku sheegaya xamar oo ilaa siyaad bare aan wax dawladii ka shaqeyn oo tii Cabdi Qaasim oo dadka ugu hubadnaa oo nin habar gidir ahaa oo xamar u dhashay lagu hortaagan yahay hudheelada lagu hortaagan yahay madaxtooyadii loo diiday Cabdilaahi Yuusuf wuxuu rabaa bartaa inuu fadhiisto meesha siyaad bare uu ka baxay nimankii warlordska ahaa Nairobi la isku qabsaday markuu yiri musharax baan hodabeedna waxa yiraahdeen wuxuu yiri Muuse Suudi baa ku yiri Cabdilaahi uu musharax baa taa nin walba kaba leeg buu ha gashado waa la soo aanjiray waa yahay buu yiri waa la doortay Cabdilaahi Yuusuf markii la doortay buu yiri Muuse Suudi oo kabihi inaad ruwa gashado way la kaadeenay kaba ugu filan baan helay si waa meesha ku socotaa maxamed baa tay kartaa buu leeyahay taas oo warlords oo hawiyahay joogto adigu ma ahid nin reer xamare waayahay buu yiri Cabdilaahi Yuusuf ragii warlordska ahaa ee xildhibaano wixii meesha dhisay wixii dhan way ka soo horjeesteen xamar baa looga sii wada horreeyay nin adag oo hadeer jooga oo ana aad jeclo la yiraahdo Cali Maxamed Geedibu ra'iisul wasaare ka dhigtay wuxuu yimi Jawhar wuxuu sii halka aad xamar ka gashi oo Maxamed Dheer haysto Jawhar iyo xamar way isku dhowyiin oo gobolada ugu dhow Maxamed Dheer wuxuu sii dawladda afka ku soo gashay halka hoosteed ugu hayso wuxuu rajay hadalka soo gaabi wuxuu arkay Maxamed Dheer dawladdiiba kala wareegay habeen buu ka guureeyay ciidankii intuu hore u sii raray meesha la yiraahdo Baydhabo tiri hagaag Baydhabo markuu tagay ayaa niman masiibaha kaga kaceen halkaas Cabdilaahi Yuusuf mushil loogu diyaariyay in laga takhaluso loogu talagalay waa xildhibaanadii dawladda ragga mishiga ugu diyaarinaya watii baarlamaanka lagu weeraro la qaxiyay arinta halka markay marisay ayaa waxa dhacday niman ay saaxiibayeen baa waxa yiraahdeen qaraxan yaa ka dambeeyay Cabdilaahi Yuusuf wixii waxaan ka dambeeyay waxaan rabnaa inaan qabanno iska celinaa adeer iska daayay buu meel fog baan ku soconaa xamar baan ku soconaa waxaan ku mashquulimayno waana mana doonayo waxaan inaan ku mashquulo ninka ragina ninka wax dili kara waxna wuu cafiyi karaa cafiskuna wuu wanaagsan yahay inaad go'aamo kala bedbedelan oo mid wanaagsan iyo mid adag baqaata Cali Koora nin cuqaashi wadanka guriga nugaal xukumi soo darwiisha baa Cali Koora loo jiray baa wiil u dhalo mutacallim isagoo buu qorayo wuxuu yiri
buug dabcan inuu ka qoro markaasuu aaba waxaad ii sheegtaa markuu wax fara badan buu ka soo qoray buu waxaad ii sheegtaa ciddii ku xumayso kula dagaalanta wax ku yeeshay iyo ciddii ku hagaajisay wuxuu yidhi aaba ciddii wax yeeshay waa cafiyay adigana wax dani kuguma jirto inaad tiraahid 100 sano aabaha waddanka xukumaya hadba yaa aabahay la hadliyay yaa yeelana waa cafiyay laakiin ciddii wax tirtay baan kuu sheegayaa macnaha Cabdilaahi Yuusuf sida uu wuxuu cafiyayo uu ninka uu cafiyay waa arrin dhaqana qofku inuu dagaalami karo waxna cafiyi karo laakiin soo looma baahna qof aan dagaalami karin samrina karin Cabdilaahi Yuusuf waynu ogeen raggii muuda iyo iidaale iyo haddii ay baydankeeda wixii ka dhacay ilaa 5 kun oo wiil oo Soomaaliya ku dhintay cid kartida lahayd xamar inay gasho xitaa ragga maanta jooga ee madaxda Soomaaliya ugu belaysan ee farmaajiye khayr go'aamada noocaas ma qaadan kareen qabaayil ururo dawlado in uusan xamar gelin baa lagu tala galay watuu jeeray soo wixiisii xabashadiisii wata fila Soomaaliya isdhex taagay saar baahiyo saarkii waa ka soo digay طبعاً أدوك مركي دم أوتيل لا تقالمي مهمة وحنا وجه هذا كرسي بدلان مدحل بدلان كرسي مرحلة هاي وصل مرتيقاب كله قط تقالمي ونص كرسي مسكين ما هو باهنا أوكي مرحلة هنوع عاصي عبد الله يوسف صامر عد وبقول شيله عارف وين أدوك أنتوا قلقلنا يقولون شيء كتير فوتو كرسي بدلان كفريستي maalintuu ku fadhiistay baa Cabdiraxmaan Faroole iyo Xasan Daahir markay meesha ku fadhiisteen baa Cabdiraxmaan Faroole oo wasiirnimadii laga qaaday Cabdiraxmaan Faroole barqo ay 9kii subaxnimo tahay ayuu baarlamaanka Garoowe u bareeray intuu qoryo soo qaatay oo xabad ka bilaabay waxaan dani hadda horta baarlamaanka weeraraya Cabdiraxmaan baa bilaabay siyaasadii buu qiyaasay hanbuulaha wuxuu arkay bahashatan xabad wax ka sokaysa inay ku jirin madaxtooyada hore iyo baarlamaanku way isku soo jeedeen iyadoo cadde iyo ninka la yiraahdo Xasan Daahir halka degan yihiin iskaafku dalka u joogo ayuu barqa baarlamaanka weeraray rag baa ku dhintay la garanayo hebel iyo hebel waa la kala qabtay waa la kala dhaxgalay Cabdiraxmaan oo niman baa kursiga fadhiis ka tag baa la yiri Australiya ku noqday wuu soo diyaar garoobay xabadu Cabdiraxmaan maalinta baarlamaanka ka riday Axmed Karaashow buu saaka baawar ku yahay oo markii dambe madaxweyne ku noqday oo saaka senator ku yahay okay saaka deni wuxuu maanta wax ku kala bedelayaa ee kursiga ku fadhiya lama oran karo waa sharciyadii subax buu weeraray oo ina dhooba daarad ku weeraray oo baarlamaankii ku weeraray oo rag ku laayay laba xiniyood iyo awood iyo qabiilnimo saaka ku fadhiya adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkana sifa sharciya lagu soo wada doortay mid walba campaign buu dox ka soo galay 66 ku ka campaign gareeyay mid walba odayaashiisii iyo mandate-kiisii uu 98kii Puntland ku dhustay iyo qabiil buu ku socday wax isugu jira oo aan ahayn baawarkaas la wada leeyahay oo qof ku hoos nooli ma jiro 98kii wixii la wada saxay oo qabaayilka hadii ay saaka Puntland ayl ku hadho degmada ayl waa company la wada leeyahay dhulbahanta hadda laga haystaa iyo laascaanood baa laga haystaa iyo ceeri waxaasi wax soconaya maaha xaafuun haday ku hadho xaafuun baa company ka wada shaqeynaya waayo magaca kan waa la waleeyay subaxba la wada saxay waa aragtaa sharcigii sida looga talaabsaday uguma horeyn diri Axmed ninka la yiraahdo bahalkii baa weeraray baarlamaanka oo baawar ku noqday Cabdilaahi Yuusuf baa 5 sano 4 sano intuu ku darsaday oo baawar dib xoog ugu qabsaday buu madaxweyne Soomaaliya ugu dalacay adeer horta kursiga marxaladahaas soo maray oo uu leeyahay miskiinimana uma baahna go'aan qaadasho u baahan yahay waxaan kaaga sheekeynayaa laascaanood sidii loo qabsaday laascaanood oona lafniman la yiraahdo
بحلقي ملا سلاوي إثيوبيا هيستي هالك أمري كيلو رصاص عربها يمالها كلا إيمان كيري ملا سلاوي بعنا قبل الصومالي أو الحكومي ما ذا حدا بدلان بو يارا وحو يري ماشة ليدو كما آمني كروه ملا سلاوي وحاركي نما كان ماشان هايستاين نما دارو ذيهين عدي حسن ظاهر نما كان كم هذا أوراً في نما دارو ذيهين إنا ين إسحد حولي كرين وقاعد السوق قبا كرين dad kuna jamhadan uusan Allah ahayn oo gol yahay rabo inay Itoobiya iska celiso wuxuu yiri maamulkaas dirta waqooyiga Soomaaliland baa meesha lagu wareejinayaa idinkuna iskaga baxa waa lagu qanciyay Xasan Daahir iyo Cadde Allah u naxariiste iyo ragii saraakiisha ahay meesha la joogay ciidanka 120 kilomitir baa la raday xargaga intii laga soo reebay Tukaraq la geeyay si ay meel suka u digin xaaladdu markii halka maras ee Tukaraq la tigay ee siyaasadii la isku fahmay ee Cabdisamed iscasilay oo aan filayo inuu arinta ku lug lahaay wax badan ka ogaa oo nin Cali Baadiye la yiraahdo oo reer Khalafa oo gruubkan Xasan Daahir iyo Jaamac Cali la socda ee Cadde oo wax ka og arinta meeshii loo magacaabay si uu ciidankan u diro oo u kala diro oo dalka u canda dawlad oo aan dagaal loo gelin ayaa xeef Cali Taarninka la yiraahdo ciidan urursaday Tukaraq buu leeyahay midug buu ciidanka inta badan ka soo urursaday 700 oo xabo oo BM ah u raray mid yar saaxiibiyo reer Tukaraqeeda wuxuu yiraahday wax ka sideen u geeyna markaas uu 700 bal asxaab bin ku dhufanaan ku ridanaa suu soo dumi mayso suu adeer markii hore Talyaani iyo Ingiriis baa soo inagu ma dhisannay waxaan rabnaa markaynu qabsano taladeed lisaaka taladeed ma isna gacanteeda markii la soo naga dib u dhisano siyaasaddu go'aamada noocaas bay u baahan tahay raganimadu Allahu naxariisto wuu dhintay okay saaka hadaba waxaanu garaanaa sanad iyo 2 bilood baa hadba jiqil qori laga gelinayay maalintii dhaweeytay ee wasiirada la magacaabayay habeen labaad habeenkii hore subaxii baa Ingiriiska la iga soo sheegay iyadoo khilaafkii hore jira si lagaaga cadhaysiyo lagu bajiqiyo lagu bahdilo in liiska la soo saarayo soo garanayis waxaan ka soo sheekeeyay madaxweynayaashii Puntland say u soo mareen siyaasadda iyo caqabadaha ay u soo mareen iyo xabadda ay u soo rideen madaxweyne ku-xigeenadan kaaga sheekeynaya adigu maanta joogtaa raganimaan kugu tumay waxaan ku oranayaa dib baan ka oranayaa Xasan Daahir nin baa warabo ahaa nin boqorana markaa meesha way isku soo beegmeen oo ay wada shaqaysan jireen ina Cabdi Xaashi waxaan xasuustaa Faroolo wasiirka maaliyadda ina Cabdi Xaashina uu meesha madaxweyne ka yahay uu sharci isagu Cabdilaahi Yuusuf uu jiro meesha liyaa in bagaad oo $10 hadii maaliyadda u soo qoro ina Faroolo uu xagga hoose dhigo oo Puntland weligeed waxba lacago iyo waxba la qaadan jiro markaan warqad fadl lacag fadlina adoonano aanu haduu Faroolo ina ku arko warqadii ina Cabdi Xaashi madaxweynaha lacagtayna siin maayo oo aanu si kale warqada u soo qorano gurigiisu ku weeraray intuu jagada ka qaaday shaqada ka joojiyay ayuu madaxtooyada ku weeraray Faroolo madaxtooyada xogeenka iyo madaxweynuhu kuwa isla deganayeen nin sharci yaqaan oo tignikada iyo waxa kama heli jirin ciidan badan ma haysan gaari iyo ma qaan wuxuu lahaa waxa ma jeclayno nimankii Cabdilaahi Yuusuf reerkooda ahaa Umar Maxamuud Baxnaaq wuxuu hadul baanto ama ninkan ciidan u soo diray ama kala ay meesha ka kaxaysta ina Cabdi Xaashi saas waxa Cabdisamed Xasan Daahir ka soo gudub nin baa warabo ahaa Cabdisamed xilligiisii Faroolo madaxweynaha dastuurka Faroolo intuu soo qaato gurigiisa la tigay buu wuxuu doonana ku bedelay intuu saamiiska u saartay wuxuu doonana ka bedelay wuxuu doonana ku daray dastuur maanta Puntland leedahay oo jira ma jiro waa dastuur Cabdiraxmaan Faroolo uu leeyahay baa meesha yaala kii la wada qortay wuu la yimi xilligii Cabdisamed iyo Faroolo joogeen gurigiisa la tigay qaab allaale qaabkii jeclaa buu ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Faroolo u qortay habeen isma aanay qaban Cabdisamed marka la yiraahdo hadii baydankii war wax qabo wuxuu rajooday waa naga maqan yahay xigeenadan kaaga sheekeynaya ina camay nin wanaagsan buu ahaa raganimo leh
tolkiisa waxa jifidiisa loo isticmaalay waxa YouTube-ka ku jirto aad Axmed Karaash oo keenaysa isagoo le adeegayagii baanan hayno aanu qaadanay oo Cabdi Wali u diiday ما ترى تلقوا ربع واتي رجع عاد مجعبتي كل صاحب لها وسير هذا الله طرياش هذا سراكيش هذا بدون شرع بجد لو وديري وحال ربع أديكوا سعسعة أو صحيح لهين أو قرب لهين أو عيدا لهين إن هالك أشوف تعدين حتى كوري ميس وما قعياله اسكده وسير والله بالله طلاه هذا إن ما ضحك هين تقوى الباب كاجا جوجا اللي بدليه oo lagu shaqaysanaya cid wax ka qabanaysaana ma jirto isim baan wax ka qabanayn siyaasi baan wax ka qabanayn caaqil baan wax ka qabanayn sharciyad baan wax ka qabanayn oo sharciyad jirtaa ma jirto marra faroolaha intuu qaato gurigiisa la tagay xilligu madaxweynaha wuxuu doono ku qoray oo farciid jirtaa ma jirto markii dambena si bareera watiiba loo dubiyo baarlamaanka loogu duulay هذا يرتنا لو شكل سودانيو هذه كان عندنا لقالات شدتك الله مقعابيو هذا رحمة كراش ومركيسات هاي سيدابات وحربتها قف كبلان وقو كالسوني ذا بلانجي هاي يدد تعلي هاي بات قف ككلية إيريال بلان ما أنت وقو كالسوني بدن السياسة ذا بلان شوقات شعب iyo madax iyo siyaasiyiin cid kasta hiil iyo hoobay kula garab taaganta ma waxaad noqonaysaa nin baryootama oo mushaharka barya mise adeer gacay siyaasadda waxbaad ka bedelaysaa wax ka bedel baan ku leeyahay siyaasaduna saaka xabad bay ku jirtaa xabad afcas in lagu garnaqsado bay ku jirtaa baasho markay halka maraso kursigaagu adeer ma nabaadina xidna mana baraxna markay halka maraso laandheeruhu kursigiisa xabad buu ku baraxdaa وانا وحلا يقانو فرولا حبد ريدي والله اسعانود محل يا قالوا ugu guriya badan oo ugu hanti badan oo aqoonyahana ba subax isagoo wasiir laga qaaday buu subax barqo baarlamaanka ka bilaabay xabada asaaka garow uga tuursid maxay tahay Cabdilaahi Yuusuf baa riday oo 5 sano intuu doortay ku darsaday madaxweyne Soomaaliya ku noqday عدم موسى بقولشير ولا بدأ كل يوم بتاعين هنا كندا تشوجا كندا أنتوا صورة في حبضة بلا مدحونا كنا قضي ورساك كراشوا واحد هذا رجع عليه نبت قليل أدونا سا يبريوتنك وام حي اسمه ذا أضرورنا سا وام حي وحنا كشقينا سا ما اسمه ساك واحتريا هنا دوبة دارين بدن أنتوا تقول سلطان كيس ساك حيسلقوا دول جورعي هذا السمة الجرو وسوق أنت والله بالله طلع هي قال لقوا استعماليا وين الضنا يصيريا مركز سوق رش جري سؤال وقعد كتير لا هي ما كل أرتيجا كدليا وكلات هنا يا مركز ساك شرعيات هذين نقطنا شرعيات دي والوطنت قبيليات هذين نقطنا نكال هذا ساك هدي قبلها لو يدي جيس كافريكا ما تشوفه هذا روح عن كعصنا أنت لفك سيد هذه بتاعتك إن الحبد آد بلودي بنا أنه وحى لقوة تشوق شرف كجهر سنيد افتاجي بوح شرف كوهر سنيد وحن كاعد سنيا أو كفريا الباب هذا وضع هذا الكتوت إن الحديد حلبان كوي ما يعني وسنشرين وذا كوي ما دانا وسنشرين سركال كارتد قال يقانا عيد أنا هين إن الباب كاجا سوقرين عيدا كاجنا وحن ديارو هين دقال يصير عيدا كهرب عد كساوي حودنين وأن حبد الهيدين وعلول وحي علول وين أسكسرتو إسكباعس كنتوني أفراد ماشي اللي يراهدوا مدحتو يدنا وين أتكو كلا أتكاتان أدي الدني وحن ربها إنا كو شاقو إنا نلقوها تشابين قروا وأدوكو مالي هديو للباسو إبستين قروا تاريخ يدان كاقا شاكينا يا قروا حدكو ماها ماشي إنجليزي يطليان على مدينة يعاد اللي يراهدوا توقع قروا كلا برا إيما تشام قرشي اللي يراهدا أحدك قبل قصول إيا الله سبحانه إيا باش هذا عدبانو هادليا أوجي أو نوح بحكومة شيء تجاس هاي وادر بوا وحها مل استراتيجية مقالو ينمتشرين فردها محمود قراد بتوجع كعب بشري سيرة وهانشر الحولا كان الله ما أقولين لما تنصر وامرك يدم بالليسكو هاي السخطر أمرك يدم هالك له علامة دي إنه حد كتوجع الله قاعد يقول مركي وخرانا
xadku wuxuu ahaa toga markii ka sii horeysana wuu ka shisheeyey laakiinse ka shisheynta anigu taariikhdeeda ma hayo waxaan garanayaa in gambool la weydiiyey oo gambool yiri waa nin ciise maxamuud war toga waanu ka wada cabi jiray marka dagaal dhacana anagu waanu ka guuri jiray oo waanu ka tagi jiray qolada Dhulbaanta Maxamuud Garaad baa ku hari jirtay niman Carab Saalax iyo reer Xisiya markii dambe meesha kaamam ka dhigtay adeer garowayaan lagugu hanjabin madaxtooyadu gobolka Sool bay ku taala xadka toga ma maqshadan kala xukuma garoway iyo meesha Allah subhanahu kala bara ninka la leeyahay uu faroolo oranayo timirkan ku fadhiisanaya Axmed Karaash oo adiga maaha waa shaydaan cid kale ha u fadhiisto habeenada tan waxa soo gargaraacay niman ugaariyahan iyo ma jeertaana oo laha waad hiilisay ma ana garanayno kuwaan weydiiyay waxay dabadeedna aabayaashoodan gartay waxa ku jira waa dadka hadda waa dadkii melmelka iibin jiray dhowr baan aabayaashood gartay midna waxaan warkaa aabihii ma taqaanaa markaasuu uu yiraahdo waxa dhalay oday intuu bahal buuri leeyada qaato dambaseey halka dambe intuu geliyo sheeksada oo laga candhuufada buuriga waxa maanta waxay rabaan inay intay siyaasad ka sheekeeyaan ay Dhulbaanta oo dalba soo yeeshateen dalkiina baa ka timaadeen Axmed Karaash halka kan muxuu wax ku xukumayaa war ayl haday ku hadho garowe degmada ayl haday ku hadho waa kambani inoo wada shaqeeyo daaroodka Puntland u shaqeeya baawarkaaga iyo intaadaad leedahay raas casayr haday ku hadho raas casayr heedhe iska daa meel kale adeer waa kambani dayrina gudoomiye iyo adna aad qasnaji ka tahay waxaan lagaala tashan iyo waxaad raalli kaan ma shaqeynayso magacaasaynu ina ka dhaxeeya hadduusan magacu dhaxayna magac kale hal la bixiyo hal isu yimaado aniga saaka qabyaalad ka hadlayo afhayeenkii daarooda ana afhayeenkii daarooda aniga ismada odaygoodiya aniga haddaan doono taliye ciidan dagaalka abaabulaya ana saaka qabyaalad ka hadlaya ninkii doonayay inuu hadlo mobilkayga saxay ka soo garaaco Dhulbaanta ma jirteen ka duuntidaho waxaan rabaa Axmed Karaash oo inaan ku sheego dani waxa dhinac fadhiya Abdiweli Ra'iisul Wasaare Soomaaliya Soomaaliya ina Cabdirashiid Ra'iisul Wasaare Soomaaliya Soomaaliya bahalkii oo sanatar ninka la yiraahdo Faroole oo madaxweyne Puntland soo maray oo intuba ay qabyaalad ugu hiilinayso adeero isbalaari oo siyaasadda barxo oo baqdinta iska daa ma garatay wardani wuxuu u yeedhanayaa ina Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh iyo ninka la yiraahdo Sheekh Shariif ya adeer gacaliye waxaad la tashataa oo aad hadaa doonto xuluufaysataa ina koore iyo Faratoon iyo Baasha Maxamed Cadde iyo Muuse Biixi iyo ina Kaahin adeer gacaliye siyaasadu baqdin ma laha siyaasadu baqdin siyaasadda waa inaad barxataa miskiinimo looma baahna wixii ceeb iyo qalad ka yimaada aniga igu qor xabadana adigu afka taagaya bilow aniga mas'uuliyadda qaadaya lambarkayga ha soo garaaco ninkii dood ka qaba waxaan kaloo sheegaya wallahi billahi tallahi Shariif baa rajul suma wallahi billahi tallahi anigu afhayeenkii daarooda aniga baroomada Axmed Karaash fuulayo qabyaalad ku fuulaya warina Cabdirashiid baa baroonka dani saaran oo Cabdiweli baa saaran oo Faroola saaran oo ina Cabdishakuur baa saaran oo Sheekh Shariif baa saaran maxaa aniga qabyaaladii diiday Madayuus baana wardani oo aanu dooranay oo boqor oo madaxweynihii Puntland intuu BDRC ka qudbadeeyay buu wuxuu reer kalshalay argagixisay ahaayeen sababta anaga Soomaaliland inuu ku xuxunayo danina uu raali gelinayo heshiiska ula galaya maxay tahay sababta Axmed Karaash oo adiga Soomaaliland lagu xuxunayo danina uu ula hadlayo oo Dubai kula shirayo oo dhiilalka ula gelayo oo leeyahay gobolada haysta maxay tahay telefoonada Faratoon iyo ina Cambaashe iyo Baasha Maxamed Cadiyena Koorana ku haya haddaad u baahan tahay waa haddii aad garba u baahan tahay haddaad isku filan tahay ma aqaan
قضب كان أحمد كراش وكوشة يا عيدا كبدلان وأنا قانا حلي عبد الله يوسف عيدا بدلان كدحية جدا بيا واسكافيو عسكا اسكاف بدنا متشتو والله الدنيا هذاك اسكاف بدن هذا حبض ودعنا الدنيا وبقر وانك أنا حصلها حبض ما تشعلا بإلهي وجيه ولي بهداد مدحتويدا كسرت يوسف حقا غرضين ولا عرضنا وضضين وفريسنا حقا يا قرح سود يا ماشي محيدين شوقي دني نكلا يراد أحمد كراشو كلي قابان ساك الله الله هداد رجعني ما ربت نكلا ورتشري ورولا والبا هصي وهو هاد سيدا يقول في عداوة هداد غير كيجا قالوا أنت أنا وضع قرب نقصدون يكون قبحت رجولي من الصوت صبح هذه يجيل حرنا ضميدن قاعدة كعيال يقلب سوقي منين إلهي بان كل أرتي هداد حبة الرتيد المدني باكوي من يفتاجيرية هداد سهل كأد بغيض هل كأد شوفتي إلهي بان كل أرتي والقون على ضيا دت كان أنا جا كوجود وأنا وكاتجية على روحه يرواج وقادك يهرتق سوق بيشتري سلسلة دي هلا ديرة بالله عين لما الشيمة ولي هل كانوا كوع عصيم الناس سقوا راسه مركزي أنبها قبل رضيدي كرورها قبل ويسينه اللي بواديار هلا بقول وانا الله با يا هو بان لا أرسكوا بنتاكتي ويليو هل يدي كودا يو هرتانها هدي أن هي صور كحول وهنجنا يا هواي كليته هي متجان هور هلا نقول والله يقول هلاينا يا هستر أنت ذا مرة دان هورارسن هي كورن إن واحد هي بتيمو يا أبتو هي لمباتة محد على كي جاي ستوه هبين دمي هذا قاعد يوحنا من هذا أفكار تاجي حبضينات بالوضع حبضنا واللورد انت كرسي جوا اللورد انت وحنا رجع كاجا شيكيني مرحلة كرسي جبلنا مرحلة أوصامري على الروح يحيوم كجماعة وجيل نكي حوكسن كريا مركنا وطول هبضة تشيلا يا إيه بريقة تشجع عليا بس عائل كانوا قبل جيل نفتر وتشربيا غضب كانوا وين كوش يجيا إسكحد الباب ولا هذا الكعيدا كاجا ديارسو إلى ديار ستدنا دجال كابلابين سبح عيدا كاجا ديار ستدنا وريك تصاغر بدك كأن نغنسد ريبوت كي كأن نغنسد أنا يك كأن نغنسد محشر كي كأن نغنسد إمارات الملك كي سارسد سبحان حبد هذا في كتاجا جبلو هدير هير بدنا كود راعي ويان أي لا أنا يقول يا تقول يسويده اسمه مالها كم فرديا إن دوبة داريدو أمسي هدرو أمسي أمس كوا شواب أحمد كراشو ومسكين وحب الله ما قوا كره نيكا وحقبصنا يا الخبين للحم ماشو صباح كنت اللي متى هذيك اللي قبرية هذيك غير شاقب بحب يكون معنا يعني أنا جا كقرنا قلنا دار الله هنا وأنا أكون مرينا برامج هذا فورا ويا نيكا اللي هذا فرولا جاندري هدري ما دني سارن هنا عبد الرشيد بقى جاندرية عبد الولي بقى جاندرية Soomaaliya inaan baromada Axmed Karaash fuulayo baa igu walaahay igu bilaahay igu tallaahay ma maqan jirteen dhiirana baromada Axmed Madoobe fuulay waxaan arkay odayaal masaakiin ah xudun iyo kala baydh iyo talax iyo ka hadlaya bahasha la burburin waxaan wada dhisay war madaxweynihii baa burburinaya maxaa difaaca barakada leeyidka qaadiye war siyaasadda barta reer Soomaaliya reer Sanaago madaxweynihii boqorka ahaa Ismaan Maxamuud baa burburinaya markaasaa lagu taageersan yahay markaasaa lagu aamusan yahay miskiina wallahi alle maaha war siyaasaddu saamaha war siyaasaddu waa wax lagu kala adkaado war siyaasaddu barya maaha war miskiinima maaha war siyaasadda geeska Afrika waa xabad war Axmed Karaashow war wallahi billahi tallahi ciidan buntland u dhisan oo ka badan inuu san jirin waa iskaafiyaduna hadii deen xoogaa raacinta badan aday ku raacsaa waayo waa la nacaydan siyaasadiisa buntland buu baabiyay Soomaaliya wala dagaalamay Soomaaliya oo dhan buu baabiyay cadawga Ilaahay ee imaaraadku u shaqeeyaa war imaaraad iyo Kenya lacag lagaga soo qaadanaya sababtan aad isu xidhxidhayso suuq dadaynaysaa waa maxay albaab kasta oo aad garaacto Elyan Sharon كي يهود هاي سجل محلك نتياهو هدي أتاكلك يا شيء سودانو قالوا ونيان لقوه هنشبن إن هذا مدي جنيد يودن كاجي بسوي بستي قالوا وأديك عليه توقع ما تشم قرشات باود حي نمك اللي محمود قرادي عيسى محمود مركي دم بعده حاجة مقالة والله كربت
كيوعد الله كباهل كي الله فريسنا يا أديك معها مجالنا كما بحكرتي أنا قول يا البورة ولا يا ملعب فريسنا مساكين هو وحوا نبعه ما أنا مغلي كرو إنا تشولي إنا بافدح ذي بابوري تاجن تاي ودني بقى مجالنا تشيكي ما يوحى ما مغلي كرو ما مغلي كرو ما مغلي كرو بقرطوية ذنا بقرطوية وينك اللي هذا محل يراه سيد عبد الله الدني بقرطوية ضدك حضارة فوق بيلاده بقول دور بقول أصلا وكهر بدنا نقول إيبن ترتي بدأ اللي إيبن يا محشر كله إيبن يا ضد كله إيبن يا كذا اللي إيبن يا هذا رجع عليه هجني ما لقى جبه هي شرعي 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 رجعوا اللوبي وين ورمها عاشك وهي عنين كهوار ما هدي الله يسعى على الصدى أحمد كراش وين يقولون محمود قرادان كوا قانا محمود قراد تاريخ لسه كاغا شاكينا يا محمود قراد حلقي تاريخ لسي أنا وحكا قرانا يا هدايا دولين ورجل هاي ناقوه ما في بتشرين مركز رما ناقوه إنا وعلى ناقوه إنا يورثمان أنت دولان بس دولان وقاعد تشرين مركز تكلم تشرين وحاسب أهم سنة أدنى ساكت نبت قرية بريسة وطينا ولا لها محمود قرا شري خير شيبة واجدا وقال يا فرضاكم ما شكلوا دوحش إلى الأرض اللي يرى شبابي حداتكم ما شباحان أنت مرشوا لها توجيان شورين مايان شركة كوما ترمان إيا دقال شيش الله يسلقه محمود قرا تشارك دقال كتر متري حرت لهم دقال الله وهير الله إنه نابو بنوار ما هذا الوحى ربعنا تحبد بلودي يا أتى البشر وبشر ذي باراد حاسمية بن عضية كرمان قالوا بقول كل شيء دتك أنا دتك ولا برين شيء لا يفهم كل هاي جلسوا على ذنك دودك قبوا